رئيسul wasaaraha Soomaaliya Xamza Cabdi Aar waxa uu gaaraya laascaanood afayeenka xukuumadda ayaa xaqiijiyay laakiin taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed General Asad Diyaano ayaa ka degay laascaanood bari salaada khudbada waxa lagu wada oogayaa dalcadii 25 Agost lagu xasuuqay ciidamada Somaliland ee Gooja Cadde wararka qaar waxay leeyihiin dhuxul maraaga ilaa iyo buundada booda raiisul wasaaraha waa la geenayaa halkaasina waxa uu kaga dhawaaqayaa in SSC Khaatuma ay tahay maamul madax banaan qorshaha qaar waxay leeyihiin waxa lagu dhabar jabinayaa maamulada kale ee daaroodka ee Puntland iyo sidoo kale Jubaland halka wararka qaarna ay leeyihiin madaxweynaha jamhuuriyadda ayaaba SSC u aqoonsanayo maamul madax banaan raiisul wasaare Xamza wuxuu aad u danaynayaa in isaga uu ku dhawaaqo in SSC ay tahay maamul buuxo oo kamid ah dawladda federaaliga ee Soomaaliya wararka qaar waxay leeyihiin madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa ku dhawaaqaya golaha wasiirada ayaa isla caawa baas gareynaya iyadoo raiisul wasaarahana isaga oo maamulka SSC u wada ictiraaf caalami ah markaasi uu halkaasi tagayo Somaliland dhowr iyo 30 sano hadii ay ku qaadato in aqoonsi hesho SSC bila ay ku qaadanaysaa sida rumaysan waxaan soo gudbinaynaa warbixin walba oo laascaanood iyo safarka raiisul wasaaraha la xiriira laakiin waxaan ka codsanayaa inaad muuqaalka like saarto subscribe-na aadna tiraahdo aad iyo aad u mahadsan tahay wararkeena hadii aan ku horeysiino zaxmad weyn ayaa ka jirta magaalada laascaanood ee gobolka Sool gaadiidka iyo soo kale dadka ayaa aad ugu batay hoteelada waa ay buux dhaafeen waxaan halkaas gaaraya wafuud kala duwan oo heer caalami iyo kuwa local ah isugu jira magaalada Garowe dadkii ugu badnaa ayaa ka baxay oo shacab saxafiyiin dhaqan iyo soo kale waxgarad culimo u diin haween iyo carruur isugu jira waxay doonayaan in ay goobjoog u noqdaan magaalada ilbaxnimada iyo midnimada Soomaaliyeed ee laascaanood sida ay u soo dhaweyn doonto raiisul wasaaraha Soomaaliya Xamza Cabdi Aar wararka kale waxa kamid ah in magaalada Muqdisho ay ka baxeen 11 duulimaad oo ku wajahan laascaanood qaarkood Garowe ay ka degeen kuwa kale magaalada laascaanood madaarkeeda ee dhawaan la hirgeliyay ay si toos ah ugu degeen iyadoo oo dadkaasi kulligood ama dhamaantood markii ay halkaas dagaan muuqaalo iska soo duubayaan farxadda wajigooda ka muuqatana ay tahay wax aan la qiyaasi karin sidoo kale gaadiidkan aadka u badan ee arkaysaan ayaa lagu soo dhaweynayaa raiisul wasaaraha waxaana bari subax uu ka degayaa magaalada laascaanood ee xarunta gobolka Sool waxa la dhihi karaa beesha dhulbahante oo magaaladan majority ka isla markaana halgankii adka soo gashay halgankeedii muddo gooban ayuu ku miro dhalay hoteeladii bilo ka hor dhulka la dhigay oo kamid ah hoteelka Xamdi ayaa dhalaalayo oo muraayado laga dhigay oo marti waaweyn qaabilaya halkaasina waxa ku sugan garaad jaamac garaad cali iyo dhammaan garaadadii gobolka Sool sidoo kale waxa halkaas ku sugan ina Cabdiqaadir ama ninka la yiraahdo ina Firdhiyo oo hogaamiye madaxa ama maamulka SSC madaxa markaas ku meel gaarna ah soo kale wasiirka warfaafinta ee maamulka SSC Khaatuma wuxuu sheegay inay soo dhaweynayaan midnimada Soomaaliya waxa halkaas soo kale ku sugan fanaanka caanka ah ee ku astaysan midnimada Soomaaliyeed ee Nimcaan Cabdiraxmaan Xasan oo loo yaqaan Nimcaan Hilaac UK ayuu ugu yimi in fantasiyahaasi uu ka qayb qaato laascaanood nin darajadiisa ama maqaamkiisu intan gaarsiisan yahay ma uusan tagin tan iyo markii madaxweynihii Soomaaliya lagu dilay ee dawladii Afgambi uu kula wareegay Jaale Maxamed Siyaad Barre tan iyo xilligaasi madax markaasi wasiiro iyo xildhibaano ka kooban ayaa tagay magaaladaas laakiin raiisul wasaaraha Soomaaliya Xamza Cabdi Aar ayaa isagu galay baal dahaba taariikhdana ka galay isaga oo midnimo uga dhawaaqaya laascaanood oo ku suntan gobonimo iyo magaalo ilbaxnimo iyo taariikh leh waxaan kula wadaagayaa afayeenka xukuumadda Soomaaliya Farxaan Maxamed Jimcaale oo shir jaraa'id qabtay isla markaana sheegaya waxa dawladdu ay ka damacsan tahay halkaas wararka xanta ay suuq ku jiray waxay leeyihiin laascaanood waxa looga dhawaaqay in ay tahay magaalada labaad ee Soomaaliya ama caasimadda labaad ee Soomaaliya bacdama Hargeysa muddo goon istaag ay tahay sidoo kale maamulada daaroodka ee la heshiin waayay dawladda dhexe ee Puntland iyo Jubaland waxa si toos ah ula macaamili doonaan SSC Khaatuma iyadoo oo markaas minority ay noqon doonaan labadaas maamul hadii 5 maamul goboleed ama ilaa iyo 4 maamul goboleed wax ka badan oo dawladda dhexe markaas ay la shirto shirka golaha wada tashiga qaran tusaale madaxweynayaasha Galmudug Hirshabeelle Koonfur Galbeed oo lagu daray SSC Khaatuma oo maamul buuxa 4taasi maamul goboleed oo uu u dhigmo gobolka Banaadir 5 maamul goboleed oo dawladda federaalka shir guddoon ay tahay hadii sidaas ay dhacdo waxa leeyahay waa laga maarmi karaa Puntland iyo Jubaland dawladdu arrinkaas ayayna qorsheynaysaa ayaa leeyahay inkastoo warkaasi war rasmi ah uusan ahayn si kastaba ha ahaatee waxaan kula wadaagayaa warka afayeenka xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Farxaan Maxamed Jimcaale oo warbaahintu akhriyo laakiin waxaan ka codsanayaa marka hore inaad muuqaalka like saarto si saaxiibo badan uu gaaro aad iyo aad u mahadsan tahay ila daawo afayeenka xukuumadda federaalka ee Soomaaliya bismillaahir rahmaanir rahiim raiisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane Xamza Cabdi Barre waxa uu safarkii nabadda iyo midnimada Soomaaliya ugu ambabixi doona magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ee maamulka SSC Khaatuma
boqoshadani waxa ay qayb ka tahay dadaalada xukuumadda dan qaran ee nabadda midnimada iyo horumarinta dalka waxay ka tarjumaysaa go'aanka adag ee dawladda federaalku ay u qaadatay xoojinta wadajirka ummadda Soomaaliyeed ujeedada safarka ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barrena waxa ay tahay sidii uu qaab dhow ugu kuurgali lahaa xaaladda dhabta ah ee ay ku nool yihiin bulshada ku dhaqan deegaanada maamulka SSC Khaatumo isagoo si gaar ah diiradda u saari doona arrimaha amniga dhaqaalaha iyo adeegyada bulshada si xal waara loogu helo duruufaha ay la tacaalayaan muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku nool deegaanadaasi ra'iisul wasaaruhu waxa uu la kulmi doonaa mas'uuliyiinta maamulka SSC Khaatumo inta uu ku sugan yahay deegaanadaasi qaybaha kala duwan ee bulshada isagoo oo markaasi dhiirigelin doona in la xoojiyo iskaashiga iyo isfahamka bulshada dhexdeeda ah iyo nabadda si wada jira in looga shaqeeyo nabad waarta iyo horumar la taaban karo waxa ra'iisul wasaare Xamse uu markaasi uu kala hadli doonaa mas'uuliyiinta deegaanka iyo bulshadaba sidii horumar loogu heli lahaa caqabadaha jira iyo sidii markaasi horumar la taaban karo looga gaari lahaa nabadeynta iyo mideynta shacabka Soomaaliyeed sidoo kale inta ra'iisul wasaaruhu ku jiro safarkaasi waxa uu xariga ka jari doonaa mashaariic horumarineed oo la dhameystiray kuwaasi oo wax weyn ka tari doona baahiyaha aasaasiga ah ee bulshada Laascaanood waxa sidoo kale uu ra'iisul wasaare Xamse uu dhagax dhigi doonaa mashaariic cusub oo qayb ka ah qorshaha xukuumadda dan qaran ee lagu gaarsiinayo adeegyada dawliga ah dhammaan gobolada dalka socdaalkan nabadda iyo midnimada Soomaaliya ee ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre uu ku tagayo Laascaanood oo ah kii ugu horeeyay ee abid ra'iisul wasaare Soomaaliyeed uu ku tago halkaasi waxa uu xoojinayaa fariinta midnimada nabadda iyo horumarka Soomaaliya waxaanu caddayn u yahay sida dawladda Soomaaliya ay uga go'an tahay in dalka oo dhan la gaarsiiyo nabad iyo horumar si loo helo bulsho isku duuban oo hore u socota xukuumadda federaalka ee Soomaaliya waxa mar kale ay muujinaysaa sida ay uga go'an tahay in muwaadiniinteeda Soomaaliyeed oo dhan ay helaan adeegyo tayo leh iyadoo oo la xoojinayo nabadda midnimada iyo cadaaladda wabillahi tawfiiq waayahay SSC Khaatumo waxay martigelinaysaa wufuudaasi heer caalami ah ra'iisul wasaaraha ayaa booqanaya waxaana lagu dhawaaqayaa in ay tahay maamul madax bannaan war walba oo ka soo kordha magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool halkan ayaan kugu soo gudbin doonaa waxaan ka codsanayaa in muuqaalka like saarto subscribe-na aad i tiraahdo aad iyo aad u mahadsantahay daawada